بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. daawadayaal waa barnaamijkeeni marxaban yaa ramadaan yani kaga soo tami jirnay tv kalsan. barnaamijkan oo uga hadalno axkaamta bisha ramadaan ee barakaysan iyo soonka iyo axkaamtiisa iyo waxyaalaha loo baahan yahay qofka muslimka ah bishaan barakaysan ee acmaal ah ee darajaadkiisa iyo ajarkiisa kor u qaadaysa. xalaqadii isugu keen dambeysay waxaanu ka soo hadalnay axkaamta bisha soomka ah iyo waxyaalaha loo baahan yahay. khaasatan waxaan ka soo hadalnay shuruudaha soonka iyo waxyaalaha maaragtay qofka acdaarta u ah oo qofka loo ogol yahay in uu maaragtay uu soomkiisa uu gadaal ka qaleeyo oo uu afuro loo ogol yahay. waxyaalaha maaragtay asbaabaha keena sida safarkii iyo jirada iyo anwaacdeedaan ka soo hadalnay. waxaan kaloo aan ka hadalnay waxyaalaha mawaanicda ah ee qofku haddii waxyaalahaas kale ay ku dhacaan uusan soomi karin ay ka mid tahay xaydkii iyo maaragtay nifaaskii, dhiigi dhalmada iyo dhiigi caadada. halkaas ayaan kusoo jirnay. xalaqadan insha allah waxaan uga hadli doonaa waxyaalaha soonka jabiya ama buriya. waxyaalaha soonka buriya ayaan ka hadlaynaa, laakiin inta aanu taa guda gelin baa niqaad yar ah oo ama points maaragtay tii hore raacsan oo badanaa nala soo weydiiyo ama culimmada la weydiiyo ayaan raacinayna. badanaa dumarku ay weydiiyaan markii ay dhiig ku dhaco ama haddii aan ka qubaysto dhiiggii maaragtay aadaanka agtiisa aan ka qubaysto maxaa dhacaya iyo wax la mid ah. masaa-ishaas waxaa ka mid ah hadday qofka dumarka ay daahir noqoto qabla maaragtay aadaanka, walow bidaqiiqa ha noqoto bay daahir noqoto. aadaankii salaada subax baan ka hadlaynaa ama fajarkii intu soo bixin alfajru saadiq, lanno aadaanka imaamku uu daahi karaa hadduu rabo, muadinku uu daahi karaa. fajarka ilan soomka waataanu ka soo hadalnay oo aan yiri wuxuu soomka waqtigiisu waxa weeye min tuluuci alfajri saadiq, fajarka runta ah ee salaada subax kusoo gasho marka uu dhasho ilaa quruubi shams, ilaa qoraxdu ay ka dhacayso. marka haddii gabadhu ay uu dhiigu ka go-o qubayla ama qabla wax yar ka hor intuusan fajarku soo bixin hadduu ka go-o, laakiin qubayskeedu uu noqdo markii uu fajarku soo baxo oo laadimo kadib ay qubaysto, wax dhiba male. saas waxaa lamid ah qofka janaabada qaba, rag iyo dumar kuu doona ha ahaadee janaabada qaba, haddii maaragtay janaabadaas ay ku dhacday qabla alfajri, qabla waxaan ujeedaa maaragtay inta uusan soo bixin saadiqa maxaa la yidhaahdaa fajarka saadiqa ah intu soo bixin ee lagu aadimo salaada kusoo gasho, hadday janaabada ku dhacday laakiin gadaal uu ka qubaystay wax dhiba male. nabigaa saa samayn jiray, iyadoo la aadimay kadib buu qubaysan jiray, soonkiisana wax dhiba male. haweentu haddii ay xaydka ku yimaado, xaydka hadduu ku yimaado bacda quruubi shams, ilaahu laxdaba ha atee, laxda waxa weeye waa second, qoraxda markay dhacdayba second kadib waxaa ku dhacay dhiiggii caadada ayaa ku dhacay. soonkeeda waa saxiix, wax dhibana male insha allahu tacaala, mana qalaynayso, wax qalana laguma laha. xataa hadduu xanuunku soo hayay intaysan qoraxdu dhicin wax dhiba male, laakiin uu dhiiggii yimid markay qoraxdii dhacday daqiiqad kadib, soonkeedaas waa sax maalintaas, mana soo celinayso, wax dhibana male insha allahu tacaala. haddii ay daahir ay noqdaan dumarka maaragtay xaydka qabay ama dhiigga dhalmada qabay, maalinta dhexbartankeeda dhiig ka go-ayba, waxa weeye waxay samaynaysaa maalintaas dhiigu ka go-ay way soo celinaysaa, laakiin maalintaa inta ka hartay wax dhiba male. maalintaa laakiin way soo celinayaan, maalintaas way soo celinayaan, qadaa baa laakiin maalintaas inta ka hartay waxba looma haysto, wax loo haysto male. culimada qaar baa dhaha yajibu alimsaak min baqiyati alyowm, laakiin sida raajixa wallahu aclam waxa weeye way afursanayd. marka wax looga hor istaago haba yaraatee meesha kama muuqdaan ama daliil ma jiro tusinaya. masaa-ishaas marka waa masaa'il ku tacalluqa, badanaana dumarku ay culimmada weydiiyaan xaydka ku tacalluqa. saasoo kale dhiigga la yidhahda damu alfasaad aan xaydka ahayn, nifaaskan aan ahayn, dhiigga maaragta shubma jiradu ay keentay, kaas gabadhu salaadana ka tegi. xaydka awal waataan yidhi salaada iyo soonka midna ka ansixi mayo, laakiin
salaada ma soo celinayso, soomkii soo celinaysaa. dhiigga fasaadka loo yaqaan waana dhiig ka soo baxa dumarka oo caan ah, xaydna aan ahayn, nifaasna aan ahayn. dhiiggaas laa yufsidu asoom, sida culummadu ay isku itifaaqsan yihin, dhiig soonka ma jabiyo, soonka ma jabiyo. waa dhiig jiro ah. gabadhu marka ay tukanaysana markaas istaahirinaysaa, markay salaadu gasho un bay weysaysanaysaa insha allahu tacaala. waxaynu ka soo hadalnay, haddaad xasuusataan, soonku wuxuu leeyahay 2 shay oo rukni ah. mid waxa weeye in cuntada iyo cabitaanka iyo jimaaca laga afhaysto markii duluuculfajriga, fajrigu markuu soo baxo salaad subax lagu tukado ilaa qoraxda ka dhacayso, kaas waa rukni. rukniga labaad oo shardigana u ah maaragta soomka waxa weye aniya, niyada qofku waa inuu la yimaado oo aysan duluuculfajrigu uusan soo bixin, waa in qofku uu maaragtay niyeysto inuu soomayo. waxaan u malaynaya masaladaas hadda ka hor inaan sheegay. culimmadu waxay isku khilaafaan maalin walba ma gooni buu u niyeysanaya mise bishoo dhan wuu niyeysanayaa. labadaba culimmada qaar baa yidhi, laakiin wallahu aclam, hadduu bishaan inuu soomo uu niyeysto wax dhiba male maaragtay, haddii isagoo uu seexdo fajarkii la adimay wax lamid ah, inay raajix tahay inuu bisha hal mar wada niyeysan karo ayaad moodaa inay raajix tahay, wallahu aclam. laakiin culimmadu waxay dhaheen haddii uu maaragtay kala gooyo bisha oo sabab maaragtay uu ku kala gooyo, maalan wuu safray oo kale ama wuu xanuunsaday oo saas ku afuray, marka labaadoo uu soomka bilaabayo waa inuu haddana niyeysto weye, waa inuu niyeysto weye. saas ayay culimmadu dhaheen. niyaduna sida culimmadu mutafiqiin ay ku yihiin, waxa weeye maxaluhaa alqalb, niyadu booskeedu waa qalbiga. afka in laga dhaho markii soomka la xiranayo in afka laga xirto ama salaada ma soo aroorin. arrinkaasna waa in dadka muslimiinta ay ku cilmi lahaadaan. nawaytu sawman qadan wax soo arooray maaha, sida aysan usoo aroorin usalii farad الظuhri iyo usalii farad alcasri iyo nawaytu usalii farad الظuhri iyo daliil nebi ka sugnaaday ma jiro. diinteena islaamkuna waa qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulu sala allahu alay wasalam. nebiguna wuxuu yihi qofkii diinteenna wax aan ka mid ahayn kusoo dara waxa weeye fahuwa raddun weeye. arrinkaas waxa weeye arrin saxa ma ahan. dadki ku ijtihaaday oo iska maaragtay dad mutaakhiriin ah oo keenayna wax daliilo ay haystaan male haba yaraatee. marka sunnada nebiga dib loogu noqday, saxiix bukhaari, saxiix muslim, kutubta sunankii dhammaan haddaad soo akhridid, xadiid nebigii baa yidhi qaala ama ha lagu xirto salaada nawaytu usalli farad duhri, ama markuu xiranayey ayuu yihi nawaytu sawman qadan, ma arkaysid meelay ku qoran tahay. caaisha waxay leedahay xadiid saxiixa, nebigu salaada wuxuu ku bilaabi jiray bitakbiir, wuxuuna ku khatimi jiray bitasliim, allahu akbar buu ku xiran jiray. soomkana ma soo aroorin inuu nawaytu sawman qadan dhihi jiray. marka niyada maxalkeedu waxa weeye waa qalbiga, waana in saa loola socdo. wax in niyada lagu dhawaaqa ay soo aroortay inta anuu kolley ka xasuusto, wallahu aclam, waa cumrada iyo xajka, inuu qofku yidhaahdo niyeystana afkana uu ka dhaho allahuma labayka xajan ama allahuma labayka cumra, labadaas soo aroor. saasoo kale waxaa soo aroortay dabxiga in la niyeysto, ilaahay daraadiis loo niyeysto marka wax la gowracayo, afkana laga dhaho allahu akbar laga dhaho. laakiin intaa wixii ka soo harta wax daliil oo sugan oo nebi ka sugnaaday ma jirto. waxaan halkan ka bilaabaynaa oo intaas waxaa noogu eg waxyaalihii maaragtay soomka axkaamtiisa ahaa oo maaragtay ama maaragtay acdaartiisa ahayd oo qofka loo ogolyahay, dadka loo ogolyahay in ay afuraan, iyo niyaddii u dambeysay hadda aynu kusoo noqonay liahmiyatiha, ahmiyadda ay leedahay. maxaa yeeley waa rukn, qofka hadduusan niyeysanna waxa weeye soomkiisu ma ansaxayo. nabiguna sal allahu alay wasalam wuxuu yihi inama alacmaalu binniyaat, acmaasha waxaa ka aakib ah oo ay ka guntantaa camal kasta niyada ayuu ka guntamaa. qofku inuu niyeysto ayaa loo baahan yahay. camalka sidiisaba waxaa kala saara inuu waajib yahay iyo inuu mustaxab yahay iyo maaragtay waa niyada wey, niyada ayaa kala saarta. camalka inuu cibaado yahay inuu wax caadi yahayna niyada ayaa kala saarta. mufsidaata asoom, maxaa soomka fasahaadiya oo jabiya ama buriya? waxyaalaha soomka buriya maxaa ka mid ah? qofku sidiisaba diinteena islaamku hadda ka horna waataan soo sheegnay, waa diinu ayusr wasamaaxa, diin ilaahay uu noo fududeeyey weye. aayaddii soomka ahaydna waatay ku jirtay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra. alla wuxuu idinla doonayaa fudayd iyo inuu idinka rido aqlaaltii iyo dhibaatooyinka dadka hore saarnaa, culaysna alla idinla dooni mayo. marka sidaas daraaddeed inta aanu bilaabin soomka waxyaalaha jabiya, waxaan rabnaa inaanu sheegno laa yufsidu asawma, soomka ma jabiyo ilaa ida kaana saa'imu caamidan
غayra mukrah bificlihi hadihi alumuur baa jebisa soo socota. arrimaha soo socota saddex shay qofku waa inuusan ahayn. waxa uu sameeyey waa inuusan kas u samayn. hadduusan kas u samayn maaragtay waxa weye soonkiisu ma burayo. waxa uu sameeyey waa inuusan hilmaansanayn. hadduu hilmaansanaa soonkiisu ma burayo. nabigu wuxuu qofkii cunoo caba isagoo hilmaansan ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey buu yiri nabiga sal alay wasalam. waa inaan qofka lagu khasbin force, waa inaan lagu force garayn. haddii halkaa inta lagaa saaro xabad ama midi lagu qabto la yihahdo cab biyahan lagu yiraahdo aad cabtido ka dharagtid, soonkaaga waa kuu jiraa, wax qallaana laguguma laha, leanna waa lagugu khasbay, adigu kaama ahayn in aad soonka si kas ah u jebisay. marka waxyaalaha aynu sheegi doono oo soomka jebiya waa qofki si kas ah u sameeya. waxyaalaha soomka jebiya waxaa kamid a alakl, inuu qofku si kas ah oo bareera wax u cuno, soomkiisi waa buray. wax inuu cuno, cunidan markay culimada fuqahada kutubta fuqahada ay sheegayeen waxa weeye idkhaalu shay, inuu qofku maaragtay in uu geliyo qofku jawfkiisa ama macidadiisa ama calooshiisa can طariiqi اlfami, afka isagoo madkhalka afka ka gelinaya wax inay calooshiisa u gudbaan waye maaragtay. waxaas hadduu doono dhagxaan ha noqdo, hadduu afkiisa wax ka geliyo wixii ay tageen caloosha ay tageen, soomkiisa waa buray. culimmadu waxay dhaheen kulu ma btalacahu camdan fa inahu muftir bay dhaheen. wax kastoo afka uu ka cuno oo afka laga geliyo qofku maaragtay soomkiisi waa buray. waynu ka hadli doonaa bahalkan la yiraahdo qofka markii icidka iyo maxaa la yihahdaa laga baarayo tuubada la geliyo, waan ka hadli doonaa iyo xukunkeeda insha allah, gadaal baan ka sheegi doonaa. laakiin hadduu wax si kasta afka u geliyo oo wax cuntaa ama wax u doona haadee, soomkiisi waa buray. waxaa kaloo soomka buriya cabitaanka, alaklu washurb waa tahay. ilahay wuxuu yihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila leyl. saasoo kale wixii caloosha ka gaara sanka, sucuud baa la yihahda, sanka sanqaroorta caloosha ayay u olosha. iyadana wixii looga shuba qofka maaragtay iyadana oo caloosha gaara, iyadana soomka wuu buriya. waxaa kaloo soomka buriya alqay-u camdan, inuu qofku ismatajiyo si kas ah. matagii soo dhaafa wax dhiba male, laakiin inuu si kasa intuu caday soo qaato ama far isgeliyo uu issoo matajiyo yidha cuntadii xalay baan ku biirooday, waxaan rabaa inaan soo daadsho, soomkiisu waa buriya. qofku inuu maaragtay soomka buriya lama rabo. waxaa kaloo soomka buriya qofku inuu shahwo si kas ah isaga keeno, si kas ah inuu shahwo isaga keeno. oo si kasee isaga keenaya, jimaaci ka hadli mayno, galmadii waynu ka hadli doonaa. waxa weeye si kas wuxuu waxa weye xaaskiisii iyo waxbuu ku dhegdhegay, markaasuu ka yimid maaragtay manida ka timid, ama wax xun buu si kasta u fiirsaday isagoo maaragtay og in hadduu waxaa fiirsay inay ka imaanayaan, manidii waa ka timid, qofkaas waxa weeye isagana soomka waa ka buray. kuwaas oo dhan aan soo sheegnay oo soomka ka buray, ilaah dembi weyn bay ku dhaceen, ilaahay bay u toobad keenayaan subxaana wa tacaala, maalintiina way soo celinayaan. insha allahu tacaala xalaqada waqtigeedii ayaa naga dhammaaday, laakiin waxaynu halkaasan kasoo wadi doonaa xalaqada soo socota. nala socda insha allahu tacaala. waxyaalaha soonka buriya ayaanu ka hadli doonaa insha allahu tacaala inta aanu ka kulmi doono xalaqada soo socota. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.